dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay diyaarisay halkii iyo goobtii uu ka dhici lahaa Jubbaland cusub ergadana ay ku soo dooran lahaayeen madaxweynaha cusub ee Jubbaland. Haddaba maanta waxaa soo gaaray magaalo madaxda gobolka Gedo ee Galbaharre wafdi hordhac u ahaa oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ay soo dirtay. wax yar waxaad ila daawataa muuqaalka madaxtooyada Villa Galbaharre oo inta badan mashquul saayid uu ka jiro iyo sida loo diyaariyay. Meeshaan ma joodaa barxadana la diyaarinayaa si qurux badan baa madaxtooyada loo nalaynayaa loo diyaarinayaa dowladnimo naga go'an diyaar garowga dowladnimo cusub fahmaysaa lagu mideysay la isku raacsan yahay stay two shaqa naga go'an anaga dowladnimo na deeq kadib dowladda markii ay gacanteeda ay soo gashay magaalada Beled Xaawo ayaa inta badan dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay qorsheynaysaa in ay Jubbaland cusub ay ka aasaasto gobolka Gedo. dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ku mashquulsan tahay in gobolka Gedo ay ka dhici karto ama laga soo dooran doono madaxweynaha cusub. haddaba daawada intaan u guda gelin warbixintaas oo dhammaystiran fadlan marka hore muuqaalka like noo saar. sidee u aragtaa in magaalo madaxda gobolka Gedo lagu doorto maamulka cusub ee Jubbaland? wixii fikirkaada iyo faalladaadana qaybta hoose ee commentiga inagu dhaaf. waa hagaag dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay qorsheynaysaa ama inta badan sida xogaha aan ku helayna ayaa waxa ay sheegayaan in Jubbaland cusub ay ka yeegleeli doonto gobolka Gedo, taasi oo inta badan maamulkaas cusub uu hogaamin doono wasiir ka mid ah dowladda ama lagu soo dooran doono magaalo madaxda gobolka Gedo ee Galbaharre. wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ee Xoosh ayaa inta badan wararka sida aan ku helayna waxa ay sheegayaan in dowladda ay ku amartay markii uu ka soo dhamaado dhinacaas iyo maamulka Laascaanood in uu gobolka Gedo uu ka yeegleelo maamul cusub ee Jubbaland ayna noqon doonto magaalo madaxdaas magaalada Galbaharre. dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay uga adkaatay maamulka Jubbaland gobolka Gedo. inta badan dagaalo ay ka dhaceen magaalada Beled Xaawo oo inta badan ay isku arkeen labada maamul ay kala taabacsan Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Beled Xaawo ayaa ugu dambeyn dowladda waxay soo gashay gacanteeda inkastoo maalmo iyo sidoo kale waqti ay qaadatay in halkaasi laga saaro maamulka Jubbaland. haddaba magaalada Beled Xaawo ayaa inta badan waxay tahay ciidanka Jubbaland inay isku urursanayaan meelo ka mid ah magaalada Mandera ee xuduud beenaadka Kenya. dhinaca kale wararka helinaya waxay sheegayaan in wasiir ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya loo qorsheynayo in uu noqdo madaxweynaha Jubbaland ergadan ay halkaas ay ku soo dooran doonto. dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheeda waxa uu yahay in ay gobolka Gedo ay ka hirgeliso nidaamkii kaarbixinta ee qof iyo codka ahaa. inta badan gobollada dalka ayaa taasina waxa ay wadaan in ay dowladda ay ku garabsiinayaan in nidaamka qof iyo codka ahaa oo dadka ay u codeynayaan madaxweynaha soo socdo inta badanna ay ku mashquulsan tahay dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale maamulkan ayaa magaalo madax waxay u noqon doontaa caasimadda gobolka Gedo gaar ahaan magaalo madaxda gobolka Gedo ee Galbaharre. dhinaca kale maamulkan cusub ee Jubbaland ayaa caasimad waxay u noqon doontaa si ku meel gaar ah magaalo madaxda gobolka Gedo ee Galbaharre. inta badan dowladda ayaa waxay qorsheynaysaa in ay si degdeg ah ay u aqoonsato ay ama aqoonsi u siiso in maamulkaas cusub ee Jubbaland cusub ay aqoonsan doonto walow maamulkaasi ay ka heli doonaan dowladda federaalka Soomaaliya sida kaabayaasha dhaqaalaha oo inta badan gobolka Gedo ayna soo gaari jirin.